now hadda waxaan soo gaarnay bal inaan fiirino sidee jumlad yar oo haddii si loo eego la dhaho qof kasta yaqaana la dhihi karo siday u fududahay isla iyadii inta la qabto sidee loo koriyaa iyadoo la maraayo nidaamka hadda aan idiin soo sheegay ee ah qaabka qarsoon ee hadalka lagu hagaajiyo ilaa laga gaarsiiyo B2 ama C1 level jumlada ila fiiri jumladan marka base ahaan aan ka bilaabaynaa marka A1 tusaale ahaan ardayga wuxuu dhihi karaa I go to work I go to work marka uu yiraahdo shaqadaan aadaa shaqo waa jumlad fudud oo aad iyo aad u cad weeye waxa laga rabo now waxaan ku daraynaa hal tiiraan ku daraynaa tiirkan marka aan ku darayno dabcan tiirkeennii saddexaad weeye ee hore aan usoo sheegno oo ah adverb yar inaan ku darno ama sifo yar inaan samayno iyo wixii la midka haddaan idhaahdo I usually go to work slowly shaqada waxaan u aadaa si yara kaadsiime ay ku jirto marka labada qaybood oo hadda lagu soo zaa'idiyey oo labadooduba sheegaya adverbnimada iyo waxa kan oo xogaa sifo ku sii daraya ayaa jumladii already u qaaday another level now pillar 4 ayaan aadaynaa marka hadda tiirka afraadon soo baranaan aadaynaa tusaale ahaan waxaan ku daraynaa xiriiriyaal in wixii la isku xiro hadafna waan u yeelaynaa tusaale although it was raining I went to work to finish my project okay walow roob uu da'ayay shaqada waxaan u aaday si aan mashruucaygii u dhammaystiro so it's already advanced sentence way jumlad xogaa yara nidaamsan ku bilaabatay conjunction kadibna gadaal dambe laga sii raaciyay ujeedo maadaama jumladeena ay hormarsan tahay hadda meel fiican ay marayso waxaan rabnaa inaan wax yar ku sii yara darno xogaa yar oo cilaan saara macluumaad yar oo dheeri ah si levelka aan joogno qofka aan la hadlayno ama cidda imtixaanka naga qaadayso ay u dareento inay tahay another level although it was raining heavily I went to the office which is in London to finish my project